qarax nuuciisu waa Hilux waxaana la sheegay inay leeyihiin maamulka Premier Bank oo ah mid ku yaala isgoyskan Taleex oo qarax ka dhacay sida la xaqiijiyay waxa qaraxan ku dhaawacmay 4 qof waxaana sidaas warbaahinta u xaqiijiyay mid ka mid ah howlwadeennada gaadiidka gurmadka degdega ee Aamin Ambulance booliskuna waxay xaqiijiyeen in askari halkan qarax markuu ka dhacayo joogay isaguna uu dhaawac soo gaaray haddana xaaladiisa la tacaalayo howlwadeenka ka tirsan maamulka gurmadka degdega ee Aamin Ambulance ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dhaawaca 4 qofood bismillaahir rahmaanir rahiim Abdulqaadir Cabdullaahi Cabdi magacayga ka tirsan darawaliinta hay'adda Aamin Ambulance waxaan xaqiijin karnaa inta aragnay ambalaasada ay qaadeen 4 qofood oo dhaawac ah inuu shacab dad meesha taagan oo shacabka kamid ah inuu baabuurka wateen ma sheegi karno laakiin inta qofood oo Aamin Ambulance xaqiijisay 4 qofood oo dhaawac ah gaariga qaadeen gaariga nooc loo yaqaan baabuurta raaxada waayo Hilux loo yaqaan dadka ma kala sheegi karno inay baabuurta saarnaayeen inay laakiin wax baabuurta saarnaa ma arkin laakiin inta qaadna shacabka 4 qofood oo dhaawac والله واحد برنو سيد مجران ما شاء الله إلهي نوقف بيه الحمد لله وأفرق فوضى طاوع ماذا أمانكم موجودة يدد لفر بدن أو لحريرين جديد كباران أي هذا نقرأ حيدا دعيان على هذا المؤمن جوب مقدشو